taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saraakiil uu hogaaminayo oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa deegaanka Janaale oo dhawaan laga xoreeyay nabadiidka Al-Shabaab ayaa socod laga ku maray wadada xiriirisa deegaanka Janaale iyo Buufo Bacaad. Janaal Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa u kuurgalayay xaaladda amniga wadada iyadoo halkaasi ay ka socdaan howlgallo lagu saarayo miinooyinka ay cadowgu rabeen inay ku dhibaateeyaan dadka shacabka. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. waxa u jeedaan waa miinooyinkii anti-tangiga miinada tan iyo tan waa anti-tangi waana waa miinooyinkii ugu tala galeen in meelaha dhirtan saaran ay ku soo boodaan waxaan ka soo saarnay socodkii aan ku mareynay Janaale ilaa iyo Buufo inay dadka ku dhibaateeyaan nimankan nabadiidka oo Al-Shabaab oo caadaystay dhiigga ummadda Soomaaliyeed waa u jeedaan aan xandaradooda waxyaalaha ay u maleegayaan shacabka Soomaaliyeed ee wadooyinka u gelinayaan marka in ay la ogaado cadaawada iyo waxa ku jira nimankan shabaabka ah oo ummadda ku soo duulay ciidankuna har iyo habeen waxay u taagan yihiin inay ka badbaadiyaan shacabka ummadda Soomaaliyeed dhagarta ay u maleegayaan Al-Shabaab mar walbana waxaan u helanahay inaanu daba joogno meelaha kasta oo ay joogaan iyo meel kasta oo ay wax gelinayaan haddana u jeeda intaan ka badan ilaa 7 kale jidkaanu ku soo qarxinay intaan kalena waa intii aanu ka soo saarnay wadada dhexdeeda intaan soo lugeynay marka insha Allah mar walba waa daba taagnaan doonaa meel allaaliye meesha ay wax gelinayaan iyo meel allaaliye meesha ay rabaan inay miina ay ku dhibaateeyaan ummadda iyo shacabka Soomaaliyeed ay geliyaan annaguna waa daba taagnaanayna waana ka soo saarnaa insha Allah waan laga guuleysanayaa ciidankuna har iyo habeen iyo maalin waxay ku u taagan inay badbaadiyaan shacabka ummadda Soomaaliyeed dhawaan u baahid markii laga xoreeyay kooxaha gobolkooda dhacay nabadiidka Al-Shabaab deegaanka Janaale wadada xiriirisa deegaanka Janaale Buufo Bacaad ilaa magaalada Markay xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ay nabadiidku ku aasay miinooyinkan iyagoo arbushaadna ka geysan jiray laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo uu hogaaminayo taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Janaal Cabdixamiid Maxamed Dirir iyo saraakiil uu hogaaminayay ayaa waxa ay socod loo ku soo mareen wadada xiriirisa deegaanadan Shilaawe Cabdullaahi Cabdiraxmaan warbaahinta qaranka deegaanka Janaale gobolka Shabeellaha Hoose.